بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن داوديال كسو دوادا برنامجka bandhiga HBN barnaamijkan maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa Donald Trump mastir rasmi ah ayuu ula wareegay awoodii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu dood adag ayaa ka taagan gudaha Israa'iil aqoon-yahanada lafagurayaasha warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa doodani waxa ay ku aadan tahay sida Israa'iil oo sida dalka loo dhigay gacmaha looga qabtay oo aysan u qaadi karin wax tilaabo oo ku wajahan marayka Gaza ilaa Netanyahu fasax uu ka helo Donald Trump haddaba arrintan ayaa waxa maqaal dheer ka qoray qoraa u dhashay waddanka Masar oo lagu magacaabo Maxamuud Sultan waxaana uu ka hadlayaa arrimo fara badan oo la xiriira sida awoodii ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu imika gacanta ugu hayo madaxweyne Donald Trump muxuu qabiir ku sheegay maxay siiyeen cadeymaha uu soo bandhigay waxa uu awood badan oo siyaasadeed isugu geeyay in uu qasbo in xabad joojin laga meel mariyo marinka Gaza October 10keedii toddobaadkii ugu horeysay ayaa xabad joojintaasi socota kadib markii 2 sanadood dagaal aan naxariis lahayn Israa'iil ku waday dadka Falastiiniyiinta ee aan hubaysnayn talaabadan uu Mareykanku qaaday ayaana hadda ka hor dhicin aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa uu abuuray maamul ka barbar abuuran dowladda Israa'iil oo xarunteeda tahay Quds oo aanan ka fogeyn xafiiska ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil mas'uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka iyo jeneraal sare oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa loo xil saaray inay isku dubaridaan howlgallada ka socda marinka Gaza hase ahaatee xaqiiq ahaan awoodda ay leeyihiin ayaa waxay tahay inay si xoog leh u xakameynayaan dhaqanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxayna hubsanayaan in uunan xabad joojinta xadgudub ku sameyn talaabadan dowladda Mareykanka ay qaadayso ayaa ka maqan wax dabc ah waxayna ku soo beegmaysaa dii si furan loo sheego in dowladda Mareykanka gaar ahaan madaxweynaha Mareykanka uu kalsoonidii kala laabtay Netanyahu iyo waxyaabaha uu damacsan yahay waxaana muuqata in maamulka Mareykanka oo hadda la wareegay dhammaan wax allaale iyo wixii talaabo military ah wuxuuna doonayaa in haddii Netanyahu loo deyn lahaa oo dagaalka iska sii wada lahaa iyadoo madaxweyne Trump uu yiri mid ka mid ah bayaanadiisa ku sheegay haddaana la xakameyn lahayn dagaalka ayuu weligii wada lahaa waa gartay muxuu yahay marka walaaca maamulka Trump ay qabaan ee la xiriira Netanyahu maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa dhowr goor si furan u sheegay walwalka uu ka qabo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in uu carqaladeeyo xabad joojinta heshiiska laga gaaray marinka Gaza ee lala galay ururka Hamas sida lagu xusay warbixin lagu daabacay wargeyska la yiraahdo The New York Times wargeyska ayaa waxa uu soo xiganayaa saraakiil Mareykan oo magacyadooda la sheegin in maamulka uu sheegay walwalka ay dowladda Mareykanka Netanyahu ka qabto ayaa laga yaabaa inuu hor istaago heshiiska ay dowladda Mareykanka meel marisay ee xabad joojinta taasoo dowladda Mareykanka ku dhalisay inay isku dabrido dadaal diblomaasiyadeed oo xabad joojinta ay ku ilaalinayso kana hor istaagayso cid ku noqota dagaal ballaaran inaysan jiri karin ama Israa'iil ha noqoto ama ururka Hamas ha noqoto xaaladda oo nugul aawadeed ayaa hadda waxaa kor u sii kacaya duqeyntii ay dhowaan Israa'iil ku qaaday dhowr goobood oo marinka Gaza ka mid ah oo ay ka mid tahay in ay duqeysay magaalada Rafah oo ay ku dishay dad Falastiiniyiin ah arrintaasna maamulka Mareykanka lama dhicin waa gartay maxay markaa dadka arrimahan la socda ay sheegeen oo qoraagu uu soo xiganaya
dadka arrimahani la socda meesha kama saarayaan in xadgudubyo noocyo kala duwan ah, heerar kala duwan ah inay Israa'iil geysato, qaarkoodna ay yihiin kuwa xag jir ah, maadaama xukuumadda Israa'iil ay u janjeersan tahay dhinaca dowlad xag jir ah wasiirada ku jira aawadeed. waxaana laga yaabaa in ay jiraan kooxo Falastiiniyiin oo hubaysan oo iyagana aanan rabin xabad joojinta inay guulaysato, laakiin dhinac walba waxa uu u baahan yahay in uu midka kale ka takhaluso. sida laga soo xigtay qiyaasta ay qabaan ilo aan magacooda la xaqiijin. si kastoo ay tahay, kuwa xag jirka Israa'iil dhinaceeda ah ayaa qayb muhiim ka ah arrimaha amniga, diblomaasiyadda iyo go'aan qaadashada xukuumadda Israa'iil. taas ayaa waxa ay ka dhigaysaa inay yihiin dad khatar ku ah amniga iyo xabad joojinta uu madaxweynaha Maraykanka soo jeediyey. dhinaca kale, Trump ayaa waxa uu aaminsan yahay in mustaqbalka bariga dhexe ay tahay in isbeddel lagu sameeyo. waa gartay, waa yahay. marka laga gudbo arrinkaasi, doodan iyo qabiilkiisa hadalka uu leeyahay in arrintii uu la wareegay Maraykanku meesha ma ka saari kartaa in xadgudub uu sameeyo Netanyahu? tani meesha kama saaraysaa leeyahay Netanyahu in uu iskaashi la yeesho dowladda Maraykanka marka ay timaado adeegsiga ciidamadiisa oo mararka qaarkood loo tixgelinayay inuu xadgudub sameynayay. waxaana la xusay wixii dhacay weerarkii uu ku qaaday Oktoobar 28 marinka Gaza oo ku soo beegantay bayaan uu sarkaal Maraykan soo saaray oo cudurdaar ayaa loo yeeli karaa, waxaana la oran karaa isdifaacid ayay ahayd, laakiin heshiiska cid wax yeeli karta lama arko. si kastoo ay tahay, cudurdaarkaasi ma qarinayo xaqiiqada ah in dowladda Maraykanka ay walwal weyn ka qabto Netanyahu iyo dhaqankiisa. sidaa daraaddeed, ka hor iyo inta lagu jiro jawaabta ay Israa'iil bixisay, cid xiisaynaysa ma jirto in dagaal lagu noqdo oo aanan ka ahayn ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo siyaasad ahaan iyo sababo faamiligiisa qusay aawadeed u raba dagaal, iyo wasiirada xag jirka ah ee xukuumaddiisa ku jira, iyo kuwo ku salaynaya inay dagaalka u wadaan sababo diimeed, ayaa maamulka Maraykanka uusan la dhacsanayn. waa gartay. marka gudaha Israa'iil sidee arrintan looga arkay? khubarada Israa'iiliintu maxay ka yiraahdeen? walwalka Maraykanka wuxuu gaaray heer uu ku adkaysto in go'aamada amniga ee Israa'iil in Netanyahu farihiisa laga maruujiyo. sidaa daraaddeed, waa markii ugu horreysay si cad loo ogaado in gacmo siyaasiyiin Maraykan ah iyo kuwo militari ah ay faaf reebayaan wax allaale iyo wixii ka dhacaya xukuumadda dhexdeeda oo ku sugan magaalada Qudus, si toosana uga amar qaadanaya aqalka cad ee Maraykanka. si kale loo dhigo, waxaa soo baxaysa wararkii ahaa in Maraykanku uu la wareegay arrimihii la xiriiray militariga iyo siyaasadda iyo diblomaasiyaddii Israa'iil. Maraykanku ma kala jecla Israa'iil hadday arrintan ka caraysan tahay haddii kale, maxaa yeelay waxaa loo arkaa in lagala wareegay madax bannaanidii ay ku isticmaali lahayd dagaal. waxaana arrintaasi ay meel u taallaa oo go'aankeeda iskale dowladda Maraykanka. haddii si kale loo dhigo, Israa'iil duulaan kuma qaadi karto markan Gaza ayadoo aanu Maraykanka amar ka haysan. Amos Hale oo ah nin lafagura arrimaha militariga oo ka tirsan wargeyska Haaretz ayaa warbaahinta Maraykanka u sheegay xeerarkii lagu dhaqmeeyey ee qornaa isbeddel ayaa ku yimid. waxaana cad dowladda Maraykanka
inay hadda ay tahay cidda loo daba fadhiyo arrimaha amniga. Israa'iilna waa inay xeerarkaasi raacdaa. Netanyahu marnaba ma aqbali doono arrintaas. hase ahaatee Israa'iil ayaa qaybo ka mida madax bannaanideeda gacanta u gelisay waddanka Maraykanka, waxaana gacanta ku haya jeneraalo Maraykana sida uu khabiirkaasi sheegay. waxaa lala yaaban yahay halkan waxa weeye dowladda Maraykanka madaxweynaheeda ayaa tartiib tartiib si abaabulan oo isu dheelitiran u muujiyey walwalka uu Netanyahu ka qabo, waxaana muuqata in uu khatartii uu damacsanaa oo dhan meesha laga saaray oo soo noqnoqotay si uu dagaal gobolka oga sii wado, si uu u adkeeyo mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo midka qoyskiisa. laakiin arrintaasi madaxweynaha Maraykanka lama dhicin, waxaadna moodaa inuu awoodii ka xayubsaday. hadda ka hor ma dhaceen wax calaamadaha ama ifafaalayaal la xiriira in Maraykanku uu amar culus dul dhigo Israa'iil? isbeddelkan hadda yimid waxa uu muujinayaa maamulka Trump inuu dhowr goor ku celiyey inuu faragelin istiraatiiji ku sameynayo go'aamada laga gaaro dowladda Israa'iil ay gaarto bilihii la soo dhaafay. bishii June Trump amar wuxuu ku siiyey ciidamada cirka oo duulaan ku sii ahaa waddanka Iiraan in ay howlgalkaasi joojiyaan oo ay kala soo noqdaan diyaaradahooda dagaalka waddanka Iiraan. bishii September Netanyahu ayaa amar ku bixiyey, amar lagu siiyey ama bixiyey amar raalli gelin loo jeedinaya waddanka Qatar kadib markii ay guuldareysatay in uu magaalada Dooxa ku dhexlaayo hogaamiyaashii ururka Xamaas. maalmo kadibna wuxuu si rasmi ah u sheegay in Israa'iil ay joojiso howlgallada xagga cirka ay marka Gaza ka wado. qaybo badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Israa'iil ayaa walwal weyn ka qaba dowladda Maraykanka faragelinteeda sida ay Israa'iil ugu baahisay, waxaana bilowday in go'aamadii madax bannaanida ahayd ee dowladda Israa'iil lahayd in shaki laga qabo in hadda Israa'iil ay ismaamusho, gaar ahaan inayna isticmaali karin awood military Maraykanka la'aantii. hogaamiyaha mucaaradka Yair Lapid ayaa mar hore ku eedeeyay Netanyahu inuu asaga keligii ka dhigay Israa'iil meel loo jeediyo ama loo yeeriyo arrimaheeda ammaanka, asagaana horseeday ba'as. Yair Lapid marka laga tago hogaamiye kale isna mucaaradka ka mid ah horeyna u soo noqday abaanduulaha ciidanka ayaa isna arrintan ka hadlay. muxuu sheegay? abaanduulihii hore ciidanka Israa'iil Gadi Eisenkot ayaa raadiyaha dowladda ee Kan la yiraahdo u sheegay in howlgalkan la maareynayo oo ay xisbiyada xagjirka maareynayaan in ay ku timid dhaqanka dowladda Israa'iil. haddana dowladda Maraykanka ayaa u aragta wax kasta inay yihiin wax dhibaato ah. hadda waxaan ku soconaa buu leeyahay inaan meel marino heshiiska. ciidamo caalami ah ayaa waddanka la keeni doonaa, waxaana la xakameynayaa ciidamada Israa'iil. wax dagaal oo ay qaadi karaan lama arko. Trump waxa uu fahamsan yahay in Netanyahu uu dagaalkan u dheereynayay sababo siyaasadeed, asaga oo ay in maalayaan wasiirada xagjirka ee xukuumaddiisa ku jira ee uunan maareyn karaynin. wuxuuna u baahan yahay in ay la joogaan si uu awoodda ra'iisul wasaarnimada u sii haysto. dagaalkana waxa weeye jeedin iyo farsamo dib loogu dhigayo dacwadaha asaga ka dhanka ee musuqmaasuq la xiriira. Netanyahu
ayaa wada olole ka dhan ah rajada iyo in maxkamadda la saaro, wuxuuna beynaynayaa wax dembiya in la galay, waxaana muuqata in hadda lagu fahmo wax walba. waa gartay. qoraaga wuxuu soo qaatay hadaladii Trump dhawaan uu ka jeediyey baarlamaanka Israa'iil. muxuu soo xigtay? booqashadii uu magaalada Tel Aviv ku tegey iyo hadalkii uu ka jeediyey baarlamaanka waddanka Israa'iil, Trump ayaa doonayey in qorshihiisa uu ku joojinayo dagaalka marinka Gaza una noqon mid fashilma, wuxuuna meesha ka saaray cabsidii uu qabay Netanyahu oo dalbaday in dembiyada laga daayo lagu maxkamadeynayo, halka madaxweynaha Israa'iil laga dalbaday inuu Netanyahu cafiyo. Trump ayaa waxa uu aaminsan yahay in dacweyntaasi ay ku riixi doonto in uu dagaal iyo rabsho sii wado, laakiin tanna waxay keenaysaa in uu ka tago dagaalka marinka Gaza oo uu ka tanaasulo nabadda dadaalka la wadana aanan marnaba la caqaladeyn si masiibadan loo soo afjaro. Netanyahu ayaa dhowr goor ku celceliyey, dhowr goorna isku dayey inuu maxkamadan iyo dacwooyinkeeda ka baaqsado, isagoo ku andacoonaya inuu maareynayo dagaal 7 jiho Israa'iil kaga furan. wuxuuna ku andacooday in maxkamad loo jiidayo. anigu wuxuu yidhi ra'iisul wasaare ayaan ahay, waddanka ayaan xukumaa, dagaal ayaan maareynayaa, walwal kama qaba aniga iyo mustaqbalkayga, waxaan walwal ka qabaa xukuumadda Israa'iil mustaqbalkeeda. waqtigaa laga soo bilaabo iyo wixii ka dambeeyey wuxuu dhowr goor isku dayey inuu maxkamadda dib u dhigo ama waqtigii kordhiyo si uu ajendayaal iyo howlo diblomaasiyadeed u samaysto. waaya anagoo gabagabadii ku dhow markaa qoraagu isla arrintaasuu sii ambaqaadaya, gaar ahaan wixii ka dambeeyey sanadkii 2020 muxuu halkaas ka sheegay? laga soo bilaabo 2020 Netanyahu ayaa maxkamadan musuqmaasuq la xiriirta qoorta u sugnayd 3 goor ayaa dib loo dhigay dacwadan. waxaa lagu eedeynayaa in uu qaatay hadiyooyin ay ka mid yihiin qamri, sigaar, silsilado dahaba, boorsooyin, dhar qaali aad u ah. wuxuuna hor istaagay baaritaanadii iyo nidaamkii cadaaladda, wuxuuna waxyeello weyn u geystay warbaahintii sida ay arrimahaasi ula tacaamuli lahayd. gaar ahaan 2 wargeys oo waaweyn ayuu dacweeyey. bishii Juun wuxuu dib u dhigay, wuxuu ku qoray boggiisa internetka ama baraha bulshada in maxkamadeyntani ay caqabad ku tahay wadaxaajoodka dagaalka, wadaxaajoodka lagu soo afjaraya dagaalka ee ururka Xamaas lala gelayo. waxa uu qoray dhaafa bibi, shaqo weyn ayuu hayaa. waayahay wuxuu kusoo gabagabeeyey qoraalku markaa qoraaga qoraalkiisa caqabadaha horyaal qorshaha Trump muxuu ka sheegay dhankaas? caqabadda siyaasadeed ee hortaagan riyooyinka madaxweyne Trump iyo nabadda uu raadinayo, sida Tal Shalef uu hadalka u dhigayo, ayaa weli waxay tahay mid aan la meel marin. sidii dalabaadka xukuumad shaqaysa oo Falastiiniintu leeyihiin loo meel marin lahaa, iyadoo aynan carqaladeyn wasiiradan xag jirka ee Netanyahu la shaqeynaya. sababtaas weeye Trump iyo Netanyahu inay labadaba caddeeyeen in ay ku riixaan gobolka bariga dhexe maareyn ka baxsan colaadda
si loo ballaariyo heshiiskii Abraham. madaxweynaha Maraykanka ayaa Netanyahu hadda kala noqday madax u salaaxi. aqalka cad ayaa hadda wuxuu sameynayaa wax allaaliyo wixii karaankiisa ah oo uu arrimahaasi ku meel marin lahaa. dowladda Maraykanka madaxtinimada ay ka hayso Israa'iil ayaa laga yaabaa inay u garbiso Netanyahu, iyadoo Trump cadaadis uu ku saaran yahay in siyaasadda maxalliga Israa'iil ka jirta in uu la shaqeeyo Netanyahu si cudurdaar loogu helo in tanaasulaad fara badan laga helo xukuumaddiisa huwanta ah. wax kale oo la aqbalaya ma jirto. waxaana muuqata Netanyahu hadda inuu u hoggaansan yahay Trump iyo waxa uu sameynayo. sababahaasna ayaana awoodda oo dhan hadda gacanta Maraykanka ku jira. waa tahay maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashanu ay mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka. daawade si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha allah. inta ka horeysa nabadgelyo. Simodi oo ah suuqa ugu weyn ee dahabka ee bariga Afrika waxa uu macaamiishiisa ugu